asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan walaalaha muslimiinta meel kastoo dunida aad ka joogtaan waxaan idiin rajeynayaa caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaado san ood ku waartaan insha allahu tacaala meel kastoo dunida aad ka joogtaanba. barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay caddayn aan rabno inaan u caddayno su-aalo walaalaha qaar ayna soo weydiiyeen ee ku saabsan ninka ragga ah bahashan umusibiyaanta la yiraahdo ee dumarka saameynta weyn ku yeelato saameyn ma ku leedahay qaabkayse calaamado ugu leedahay. waxaa kale oon barnaamijka insha allahu tacaala idin kula wadaagi doonaa geedkan aada arkaysaan. geedkan waxaa la yidhaahdaa kaful mariim ayaa la yidhaahdaa, luqadda englishkana waxaa lagu yidhaahdaa just tree ayaa lagu yidhaahdaa. geedkan ayaan insha allahu tacaala iyaduna sharaxaad ka kooban ka bixin doonaa hadduu ilaahay subxaanahu watacaala yidhaahdo. waxaa ka mid tahay daawooyinkan ayay ka mid tahay, marka waxaan doonaynaa iyaduna insha allahu tacaala sharaxaad yaroo kooban inaan ka sameyno. haddaba marka ragga umusibyaan ma saameysaa, qaabkayse u saameysaa, qaabkeese looga daaweeyaa, waa su-aal muhiim ah hore u baahan in laga jawaabo insha allahu tacaala. ragga saameyn ayay ku yeelataa umusibyaantu, calaamadana way leedahay. calaamadaha waxaa ka mid ah ninka ragga ah oo ay saameysay umusibiyaanta. waxaa ka mid ah ninka ragga ah calaamadaha uu dareemayo kama duwana inta badan calaamadaha haweeneyda ay dareemeyso. sida iyadu ay dareemeyso ayuu asaguna inta badan dareemaa, waxyaalo yar bay ku kala duwan yihiin. ninka wuxuu arkayaa, ninka calaamadaha lagu garto ninka umusibyaanta ay saameynta ku yeelatay waxaa ka mid ah kor xanuun, jirka oo dhan ayaa xanuunaya, jajabaya, habeen kastana waa uu qarwaya, waa riyoonaya, naagaa u imaanaya. waa calaamadaha lagu garto ninka ciladaas saameynta ay ku yeelatay. qodobka kale oo lagu garanayo ninka ragga ah ee xanuunkaas saameynta uu ku yeeshay waxaa ka mid ah in uu isku arko yacni murugo, oohin ay raacsiisan tahay, inuu iska yara oynayo, isciilkaambinayo ayuu dareemayaa marmarka qaar. ninka ciladaas qabo ee umusibyaanta qabo, haweeneydiisa waa uu ka dheeraanayaa, khilaaf wuu ka dheeraanayaa, xitaa waxaa kaloos ka dheeraanayaa inuu naag la sheekaysto oo haweeney kale uu raadiyo oo hami naageed uu yeesho, waa uu ka dheeraanaya. xaaskiisiina waa ka dheeraanaya, lama hadlayo, sheeko iyo maaragta howlo kale lama dhexmarayaan, gogoshii sidoo kale waa oga hajirayaa. calaamadahaas ayuu yeelanayaa ninka umusibyaanta ay saameynta ku yeelatay. bahashan taabicada la yiraahdo umusibyaanta waxaa weeyaan, waxaa jira yacni calaamado kale oo ay leedahay bahasha qareenka ah taabicada la yiraahdo. qofka wuxuu arkayaa, haweenka iyo ragga labaduba waxay arkayaan saan horey usoo sheegnayba riyooyin argagax leh, si xun bay u riyoonayaan, way cabsanayaan, wadnaha xanuunaya markay cabsadaan, hurdadii baa ka tegaysa. waxay arkayaan oy isku arkayaan khilaaf joogto ah oon dhammaanshaba lahayn, wax laga xinaaqay ama la ysugu dhacayna aanan la garanaynin bay leedahay. waa iska daa'im. waxay leedahay haweeneydu sidoo kale iyaduna way leedahay waxaa loo yaqaano murugada iyo oohinta hoose ee kaga imaanayso, meelay kaga imaanayso iyadu ma garanaysa, laakiin waxay dareemaysaa inay ooyeyso. haweeneydu waxay saameyn uga yeelanaysaa bahasha umusibyaanta la yidhaahdo riximka ayay saameyn xun uga yeelanaysaa. xanuuno badanaa lagu sheegayaa, fibroda ku hayo, sista ku haysa, waxawey barooyin kalaa ku haya, waxaweyaan waxyaalo 12 waxyaalood waa la qalaya ilaa heer marka dambe la gaarsiiyo in laga saaro minki. halkaasi haweenka iyay u degtaa bahasha umusibyaanta la yiraahdo. haddaba marka maxaa lagu daaweeyaa, qaabkee la isaga daaweeyaa bahashaas? waa su-aal muhiim ah inaad ka faa'iidaysataanna aan ugu talagalay insha allahu tacaala. bahashaas qaabka loo daaweeyo walaalayaal ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan idinla wadaago. qaabka loo daaweynayo waxay ka kooban tahay
qaab quraan lagu daaweeyo la isugu daro daawooyinkii iyo quraankii sunnada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam adkaarti haddaba waxaan idiin soo khulaaseeyey oon idinla wadaagayaa sida ugu wanaagsan ee loo daaweeyo bahashaasi taabicada ah kow haddaan ku hormarno dhanka quraanka annagoo daawada usoo laabanayno dhanka quraanka haddii aan usoo laabanno sida looga takhaluso musiibiyaanta bahashaas taabicada ah sida looga takhaluso gebi ahaan waxaa weeyaan waa qiraa'atu suuratu saafaat suuratu saafaat ayaa waxaad ku akrinaysaa 3 jeer suuratu ljin 3 jeer baad ku akrinaysaa suuratu qaaf maratan waaxida qaaf waxaad ku akrinaysaa hal mar baad ku akrinaysaa waxaa kalood ku akrinaysaa suuratu racd maratan waaxida hal mar baad suuratu racd ku dhamaynaysaa lama rabo ayada goosgoosa iyo wadaad aan quraankiiba sixi karin ama quraankiiba aan aqoonin oo jijibinayo lama rabo quraanka waxaa la rabaa si tajwiid ah in qofka loogu akhriyo oo lagu dhameeyo suuratul buruujna maratan waaxida ayaa lagu akhrinayaa suuratu taariqna hal maraa lagu akhrinayaa waxaa lagu akhrinayaa maratan waaxida wadadaas qaabkaas aan idiin sheegnay waxaa weeyaan haddii la sameeyo way dhammaanaysaa bahashaasi aayaadka ruqyadana lagu xijiyo lagu akhriyo la sameeyo isla markaasna la isticmaalo shajaratulmariim daawadan loo isticmaalo daawooyinkana loo isticmaalo sidoo kale waxaa loo isticmaalayaa saliida zaytulmucjiza oo korka la marinayo habeenkii waxay leedahay musiibyaantu madax xanuun bay leedahay madax xanuunka waxaa zaytul asraar ayaa madaxa la marinayaa way ka zuulinaysaa sixirka madaxa gale madaxa xanuujiya timaha gura waxaad u qaadanaysaa zaytul asraar saliidaas ayaad isticmaalaysaa subaxdii baad marsanaysaa saliidaasi habeenkiina waxaad ku qabaysanaysaa milxul muusa aad ku qabaysanaysaa waa cusbo ka kooban 6 shay oo daawo ah oo sugan ayaad u isticmaalaysaa insha allahu tacaala intaas iyo quraankan haddaad isku samayso oo isku akhriso intaas muddo 2 usbuuc ah ugu badnaan 3 usbuuc bannaankay maraysaa way baaba'aysaa insha allahu taala haddaad rag tahay iyo haddaad dumar tahayba oo musiibiyaan dambe iyo calaamadaheeda iyo dhibaatooyinkeeda isku arki maysid insha allahu tacaala markaas aad ka daawowdo ilaahay kaa caafiyana waa in aad laasimto dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala salliga nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam qur-aankii akhrintiisii masaajidii yacni waxyaalaha wan wanaagsan sadaqadii waa inaad laasimto ilaahay idinkiisa oo musiibiyaan iyo sixir iyo xasid iyo dhibaatadiisa dhan meel baad iska marinaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala aad baad u mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh شفاء لروحي وحبل المتين bulshooy bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayo bad cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga 100 qof igu dhex daraya cudurrada laga daaweynayo waxaa ka mid ah dhiig furanka waalida ceedo wareerka umuusibyaanka gabdhaha wejiga ka halaabay baabasiirka dhagaxa kiliyaha gala xoojinta raganimada isha dhiigkarka sokorta naxdinta kili xanuunka waswaaska madax xanuunka jinka dhalmala'aanta dhasha Allah bixiye toobinta iyo kuwa kale oo fara badan